السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halka ka salaamayaa dhamaanba asxaabta iyo family-ga intii magacayga muuqayga taqaana. caawa waxaan halkan kala hadlayaa dhamaanba taageerayaasha xisbiga wadani laantiisa Jarmalka. baryahan soo noqnoqday oo aynu maqlaynay in laantii xisbiga wadani ee Jarmalka khilaaf ka dhex jiro. laanta xisbiga wadani ee Jarmalka wax khilaaf kama jiro. laanta xisbiga wadani ee Jarmalka waa la shaqeysa, waa laamaha ugu muhiimsan Yurub ee aad iyo aadka loo dardargeliyay ee sidoo wanaagsan u shaqeeya. laantaas waxaa horumariyay oo wanaageeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda iskale gudoomiyaha laanta xisbiga wadani ee Jarmalka Xuseen Abiib iyo Baashe. waa labadii nin ee aas-aasay xisbiga, waa labadii nin ee u soo tiir iyo tacbeelayba, waana nimanka maanta heerka uu marayo laanta Jarmalka ee xisbiga wadani heerka ay marayso waa nimankii soo gaarsiiyey. waa niman aada iyo aada ugu shaqadoodii iyo mas-uuliyadoodii kasoo baxay. 2013 iyo haddanu joogno 2015 xisbiga wadani laantiisa Jarmalka wax soo arrimo aada u muhiima oo wanaagsan ayay qabatay. waxaana arrintaa fudeydiyey oo hirgeliyey waxa weeyaan Xuseen Abiib iyo Baashe iyo taageerayaasha jecel xisbiga iyo inta wanaaga xisbiga mar walba ka shaqeysa ayaa heerkaa soo gaarsiiyey. waxaa soo gaarsiiyey xisbiga horumarka laanta Jarmalka dhammaanba taageerayaasha xisbiga wadani. haddaba maanta waxaa jira khilaaf aan aada u sii weyneyn, laakiin la rabo in dad gaara ay doonayaan inay buunbuuniyaan ay weyneeyaan, kuwaasoo eed ka dhiganaya ninka marka libintiisa laga xastayo waxa loogu soo wareegaa dee lama waayo. marka dad baa le xisbigu shaqeyn waaye, laantii Jarmalku way sidanay noqotay, way burburtay, ninka ligitalaysa haysta, ninaan dadkii kala jeclaysanaya ayaa haysta. waxaasna waxaa wadaa afar qof oo fara ku tirisa oo aan aada u buurnayn oo aan miisaan ku lahayn taageerayaasha xisbiga, iyo hal website oo websaytada aadka u daciifka ah oo aan hadda halkan ka magacaabi karin, laakiin sharaftayda baan ahayn bayna magacaaboba. websitekaas waxaa iska leh nimo yareer oo ku nool Jarmalka. websitekaas waxaan ku arkayay inay been iyo waxaan jirin ka sheegaan gudoomiyaha xisbiga laanta Jarmalka. ma geeyo, maaha nin geeya, waa ninkii sameeyey wanaagga maanta Jarmalka yaalla ee xisbiga wadani. waa ninkii dadka aada aragtaan ee gobolada oo dhan isu keenay, waa ninkii degmooyinka magacaabay waa ninkii xisbiga oo siiro taagan maanta soo gaarsiiyey heer dee lagu faano laanta Jarmalka. Xuseen Abiib gudoomiyaha uu yahay waanu ahaan doonaa. waxaan u sheegayaa gudoomiye Ciro iyo taageerayaasha iyo cid kasta oo danaysa xisbiga wadani in laantii Jarmalka ee xisbiga wadani ay shaqeyso, wanaageeduna uu sii siyaadayo maalinba maalinta ka dambeysa. laakiin ay jiraan dad xisbiga ku dhex jiro wanaaga xisbiga aan jeclayn ay jiraan, way ku dhex jiraan oo xumaanta mar walba xisbiga ka shaqeynaya.
website-ka waxaan leeyahay xisbigu waa xisbi qaran, maaha xisbi lagu dangaadho, maaha xisbi nin jeclaysi iyo hebel baa caynkana lagu eedeeyo. guddoomiyuhuna waa nin sharaf inaga mudan. waxaan la hadlayaa website-ka iyo inta la halmaasha ee dhalinyarada jarmalka jooga oona aada qaar badan saaxiib u nahano isnaqaano. waxaan leeyahay waxaad tabanaysaan ku sheegta si asluub iyo karaamo leh. qolada wax tabanaysa ee kasoo horjeeda xuseen abiib si sharaf iyo karaamo leh wuxu sheegta. wixii mu-akida ee macquula ee la qaadan karana waxbaa laga qabanayaa. wixii aan macquul ahayna la noqda, gartiinana intaydan geedka imanin soo noqda oo soo hagaajista oo soo wareysta. xuseen abiibna wax lagu eedeeya hadda oo xisbiga ama xumaan loogu sheego ama xisbiga loogu guddoomiyenimada looga qaada maanta ma jiraan. xisbigu meel wanaagsan buu marayaa, si wanaagsan buu shaqeynayaa. bal idinku qoladiina eedeynaysa meelaha idinku aad joogtaan xisbigu ha ka shaqeeyo. markuu laamaha ay idinku joogtaan oo xisbigu ka shaqeeyo ee aad xisbiga soo gaadhsiisaan degmooyinka iyo gobollada kale aad la tartantaan horumarkiisa gaadhsiisaan, markaa xisbiga guddoomiye xisbiga eedeeya. laakiin idinkoo qaybihiiniiba ay dhib ka jiro oo aanay shaqaynin oo idinkiiba iskala magaranaysaa aydan isku kalsoonayn, inaa haddana xisbigii iyo guddoomiyihii iyo u boodaan maaha wax suuragala, maahana wax munaasib ah. waxaan idiin sheegayaa guddoomiyaha xisbigu waa nin dhalinyaraa, waa nin furfuran, waa nin wanaagsan, waana nin aqoon leh. tabashooyinkiinana uu dhageysan doonaa, wax badanna uu ka qaban doonaa. laakiin arrin aan banaanba in loo saaro aan mudnayn inaa idinku banaanka u saartaan oo idinku wax weyn ka dhigtaan ma habboona. waxaad tabanaysaan sheegta. guddoomiye uu yahay xuseen abiib waanu ahaan doonaa insha allahu. waxaanan ku rajo weynahay in qolada gruubka ah ee xuseen abiib kasoo horjeeda in lais afgaran doono. waxaana leeyahay xisbigu wuu jiri doonaa, xuseen abiibna guddoomiye uu ahaan doonaa. laakiin ka daaya xisbiga fadqalalada iyo xumaanta iyo website-ka aa wax kusoo qoraysaan mar walba. dibna isugu noqda oo bal dib isugu idinku usoo xisaabtama. cidid ka aqbalayso idinka dhegeysanaysa xisbigii ma shaqeynayo oo jarmalka kama shaqeynayo, cidid ka aqbalaysa ma jirto. waayo laantii xisbiga ee jarmalka way shaqeysaa, si wanaagsan ba u shaqeysaa. laamihii gobollada iyo degmooyinku way shaqeeyaan. marka waxaan leeyahay bal dib isugu noqdo qoladiina wax eedeynaysa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.